حقيقة عبد المالك wuxuu wada waasaas ugu horeyn waan cudur daaranayaa ma jecleen in aan waxyaalahan oo kale ka hadlayay balse damiirkii igu jidha ayay siin waayey inaan ka aamuso waxaynu dhammaanteen ognahay wiil walaalkeena oo la yidhaahda cabdimaalik muuse coldoon in la xidhay laguna xidhay oraa xaqa oo yidhi haddaba wadaadkana u joodaan ayaa mar uu ka hadlayay waxa uu yidhi uuna ka yidhi cabdimaalik dhowr hadal oo nuu qalmin uuna ku xadgudbayay waxaan islahaa waxaa la arki doonaa qof in naga kaafiyo oo been abuurkan iyo waxyaala uu ku samaynayay naga kaafiyo bulshada u iftiimaya balse maynan helin haddaba hadalkiisa uu dheer yahay bal in yaroo ka mid ah aynu wada dhegeysanno wixii qaldan si saxa baa loo saxa culimadu waxay ku miithaaliyeen qofka wax saxaya laakiin ku saxaya wada khaldan qof kaadi ku istijooday haweenay caadadu intay ka go'day ku qubaysanaysa oo ku istijoonaysa caadada iskaga daahirinaysa kaadi waa najaasa lagu daahiri waa munkar lagu suuli xaqiiqatan cabdimaalik wuxuu wada waasaas wuxuu yidhi cabdimaalik munkar ayuu ku zuulinayaa munkar cabdimaalik waxaynu ognahay inuusan arrinkaas samaynin nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo tilmaamay qaabka munkarka loo zuulinaya in wanaagga la isfaro xumaantana la iska zuuliyaayey waa shay aada u weyn diinteena ayna amartay rabbi sareyna wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha in ka mid ahaato ha laynka hela duul iyo dadka ugu yeera khayrka iyo wanaagga fara waxa wanaagsan kana reeba xumaanta alla subxaana wa tacaalana ummaddan wuxuu ku tilmaamay inay tahay khayra ummatin ukhrijat linnaas way lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad iyo duul wanaagga isfara xumahana iska reeba haddaba cabdimaalik wuxuu u tagnay arrinka asaga ah nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan qofkii idinka ka mid ah oo arka munkar iyo xumaan ha ku zuliya gacantiisa haddii uusan awoodinna ha uga dhawaaqa carabka haddii uusan awoodinna ha ka kohdo qalbiga cabdimaalik wuxuu sameynaya oo keliya in uu carabka uga dhawaaqo oo yidhaahdo waxaasoo waxun ha la iska daayo in bulshada u iftiimiy uu yidhaahdo awlaaddiinii ayaa waxaa lagu yeerayaa ilxaad iyo kufri awlaaddii ayaa lainka fasaadinayaa dhaqanka wanaagsanaa ee soo jidheenkahaa ee bulshada soomaaliya lagu yaqaanay ayaa la min xaabinayaa oo reer galbeed ayaa inoo soo direen dad christian ah oo ilmahayni diinta ka bixinayo war arrinkaasi mi weynan arrin wanaagsan oo u mudan in bulshada loo iftiimiyo haa wuu yahay wuxuu yidhi sidoo kale wadaadkan asagoo cabdimaalik ka hadlay wuxuu yidhi afkaartaada iyo dhaqamadaada ooma bogin haddaba haddii aadan u bogin afkaarta iyo dhaqamada cabdimaalik ma waxaad u bogtay naagta kirishtaanada ah ee faafinaysa kirishtimka ilmahana ilxaadka ugu yeedhayso dhaqameedkeeda iyo afkaarta ay waddo miyaad u bogtay waa su-aal mudan in asaga la weydiiya asaga ayaan weydiinaynaa wuxuu yidhi asagoo ka hadlaya cabdimaalik mar uu tagay garab oo laga soo ceedhiyey buu yidhi waxaan ku oyin buu yidhi samafal insaannimo muslimnimo iyo soomaalinimo wuxuu yidhi haddaad intaas ku jiri leed meel walba tagto lagu soo dhaweyn lahaa cabdimaalik hadda ay bulshada soomaaliyeed jeceshahay garan mayno meeluu oga tegay samafalkii garan mayno meeluu oga tegay muslimnimadii garan mayno meeluu oga baxay soomaalinimadii waa qof muslima soomaali ah samafale ah wuxuu yidhi waxaa wadaa kicin shacab
iyo xamaasad iyo fitno iyo waxyaalahaas wuxuu yidhi waa laga soo daalay. cabdimaalik waxaas kumaana arkin. cabdimaalik waxaynu ku naqaanaa inuu yahay samafala masaakiinta caawiyo, inuu yahay qof bulshada wacyigeliyo, xumaanta ka wacyigeliyo, wanaaggana ugu yeedho. balse adiga ummaddana wax uma qabatid oo meel uguma tirsanid, dadkii ummadda wax u qabanayana kaama badbaadayaan. la soco haddii dadka diinta ilaahay u taagan oo masaakiinta caawinayo haddii aada laacdid in aadna lagu laaci doono.